xajka ilaahay wuxuu yidhi liyashhaduu manaafica lahum markii nebi ibraahim la yidhi dadka ugu yeedh ugu baaq waadin binnaasi markii la yidhi dadka ugu yeedh xajka waxaa la tilmaamay inay iman doonaan iyagoo mid bog laalan iyo mid kaleba fuushan iyo mid lugaynayaba maxaa loo imanaya xajka koowaad markaynu ka nimaadno jaanibkii cibaadada ah waxaa la yidhi liyashhaduu manaafica lahum inay soo xaadiraan manfaca maxaa ka mid ah mid dhaqaalaa ka mida mid siyaasadeed baa ka mida mid akhlaaqiyeed baa ka mida mid wax kastoo ay noloshu leedahay xajku wuu koobaa kow waa meel loogu talagalay in caalamulislaami oo dham isugu yimaadaan xajku waa cibaadaadka la ogol yahay in tijaaradana la sameeyo oo fii suurati albaqara waa ka ilaahay ku tilmaamaya falaa junaaha calaykum lagu tilmaamayo idan wuxuu noqon lahaa xajku haddii sidii loogu talagalay loo isticmaalo meel dadka muslimiinta dunida ku nool oo dhammi macrad ay dhaqaalahooda ku soo bandhigaan macrad la isugu yimaado caalamulislaami waa la kala googooyey iniba dhan bay u jeedaa iniba dowlado macaaradooda waxay ku xidhan tahay reer galbeedka iyo waddanno kale laakiin xajku waxaa loogu talagalay inuu noqdo meel dunida oo dhan waxa muslim joogaan hantida ay ku soo bandhigi karaan cid waliba waxay soo saarto cid waliba simbosiyum la isugu yimaado oo macrada oo cid waliba ay keenta maxay dhaqaalahay wadatoo dhan xajku waa meel loogu talagalay ummadda muslimka madaxdeedu inay ku jirto isugu timaado oo ahdigii saxaabada iyo cumar wilaayaadka islaamiga dadka haysta oo dhan buu odhan jiray kaalaya shucuubta muslimiinta oo dhanna kaalaya wixii cabanaya halkaas ugu garraqi jiray wixii bolosiya la isfaraya dunida waa shir caalamiya oo isugu imanayaan qaadat alumma xajkuba iyo culammadii hore waxay u haysteen inuu yahay meel la isugu yimaadaan alculamaa culammada muslimiinta ee dunida ku kala nool ee ninba fanni ku takhasusay ama aqoon dheeraada u leeyay xajkaa la beegsan jiray inaad sheekh hebel kula kunto oo markaa ciddii fanni gaara lagu tuhmaya ay dhigto wakhtiga xajka la joogo oo ay culamada kale intay isugu yimaadaan haddaad kutubulxadiid akhrida makaan akhrido waxaad arki un iyadoo taraajumta uu leeyahay dabeetana wuu xaj tegey halkaas wuxuu kula kulmay sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel oo waxaa kaga soo qaatay ama waxaa ka soo bartay xajku waa meel ay isugu yimaadaan aqoon-yahanka muslimku way aqoontooda guud ahaan ay isku weydaarsadaan ama ku wada hadlaan